caloosha. waxaa jira hab aad u fudud oo caloosha aad ku nadiifin karto. aamin ama ha aaminin sababta caloosha bis ugu weyn tahay oo caloosha ay faad badan oo kaaga saaran yahay wax kale maahan waa jirkaaga oo raba inaad adiga siin. asalaamu calaykum dhegeystayaasha qiimaha leh. maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan bini'aadamka, taasoo ah caloosha. haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe noo saar. haddii hore noola joogtiin waad ku mahadsan tahay daawashadaada. waa anigoo ah Cabdixakiim Elanko. dad badan ma oga sida ay muhiim u tahay caloosha, balse haddii caloosha ay si sax ah loo ilaalin waxay keeni kartaa dhibaatooyin badan oo dhaawacaya noloshaada maalinlaha ah. caloosha waa meesha cuntada ku burburto si jirku uu helo tamar iyo nafaqo ku filan. markii aad wax cuntid, caloosha ayaa cuntada shiidaysa iyadoo isticmaalayso dhacaano gaar ah. laakiin haddii shaqadaas lagu carqaladeeyo, jirka oo dhan ayaa dhibaatoonayo, sida madax xanuunka, daalka iyo calool xanuunka. muuqaalkani waxaan kugu soo gudbin doonaa muuqaal dhammaystiran oo ka hadlaya caloosha, oon ka soo guuriyay yar walaalkeen ah oo saa'id ugu faallooda caloosha iyo dhibaatooyinka ay leedahay. haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato caloosha iyo ilaalinteeda, waxaad booqan kartaa channelkan hoos kuu soo dhigi doona walaalkeena ku leeyahay barta TikTok ah. aan u gudagalno muuqaalkeena daawasho wacan. waxaan rajaynayaa inaad wax un ka faa'iidi doonto muuqaalkan. meeqa xanuun ayaa jirta oo caloosha ku dhacdo. xanuun waxaa jira Soomaalida inta badan ee qabta ee loo yaqaano H pylori, waa bacteria ku dhacda caloosha, ama waxaa loo yaqaana helicobacteria ayaa wadamada qaar u yaqaanaan, helicobacter wadamada qaar u yaqaanaan. waa bacteria oo yacni waa jeermis dilaa ah oo ku dhaca caloosha. jeermiskaas dilaasha markuu caloosha ku weynaadana asaga ayaa wuxuu sababaa xanuuno kala duwan. tusaale kale, caloosha markii bacteriadaas ku dhacdo waxay cunaysaa maqaarka caloosha ayay cunaysaa. maqaarka caloosha waa duf sida shukumaanka kale u eg waayo ama taawalka u eg. dufti ayay cunaysaa, way dhammaynaysaa. duftaas markay dhammayso, meeshii dhaawac ay noqoneen nabar ay noqoneen. calooshii meesha cuntada ku dhacaysa nabar ay noqoneen. nabar markay noqoto way duleeshami kartaa oo wasaqdii ayay ku sii deyn kartaa jirka. waxaa loo yaqaanaa leaky gut, ama bacteria meeshaas ka baxday ayaa saxarada raaci karta oo mindhicirka weyn ama mindhicirka yar ayay nabar ku noqon kartaa oo duleelin kartaa oo goosan kartaa oo yacni way xoqaysaa. waxaa ku dhaca waxa loo yaqaana irritable bowel syndrome oo loo yaqaano IBS. marka lasoo gaabina la yidhahdo nabar ku dhaca mindhicirada oo inta badan aan la arkin. lama arka nabarkaas haddii kaamira hore lagaa geliyo, kaamira kor lagaa geliyo, hoos lagaa geliyo, inta badan nabarkaas lama soo saaro. waa nabar dhib badan waayo. waxay kaloo sababtaa bakteeriyadaas caloosha in ay kor, yacni caloosha inta uburiso oo uburti kor inay aado, hadhowt qofki inuu dareemo laabdilaac. laabdilaacaasa marka asi laba loo sii kala qaadaa. mid waxaa la yidhahdaa acid reflux, waa acidka calooshiyo kor isku wada aadaayo. midna waxaa loo yaqaanaa hiatal hernia, oo waxaa laga wadaa cuntada annaka markaa cunno oo dhuunteenna ee gasho waa one way, waa hal jid afka inay ka gasho ee hoos aado. cuntada haddii dib u soo laabato qofku wuu xanuunsanayaa, waa matag, waa one way, waa hal meel laga cuntada hal meel ka soo gashaa. korkan waxbaa ka soo galo, hoosa wax ka baxaan jirka. laakiin hoos haddii wixii ka soo laabtaan inta soo aadaan qofku wuu xanuunsanaya. hiatal hernia waxaa la marka waa muruq yar hiatalka oo ku yaala meeshaan esophagus la yiraahdo, dhuuntaan meesha ee caloosha iskaga darsami rabto. waxaa jiro qanjir yar oo saasoo kale tuba ah oo intana muruq ku leh intana muruq ku leh oo isxira. cuntada marka adi cuntu wuu isxiraa dhag sidaas cuntada kor ugu soo laaban marka la dheefshiidaa. asagii ayaa kululaanayo, xoog markuu u kululaado wuu jiranaa. markuu jiradana wuu dabcaa. markuu dabca marka cuntadii qofka ilaa dhuunta u tagayso waxaa loo yaqaanaa hiatal hernia. dad badanaa qabaan oo Soomaaliya magacoodana ma yaqaanaan problemkaas. marka qofku wuxuu isku arkayaa dibiro oo qofkii wuu dibiraya. haddaa isku aragtid dibiro oo isku aragtid in cuntooyinka qaar aad ku labalaboonaysid oo isku aragtid dhuusa tir badan oo markaa cuntana aad dibiraysid, cuntooyinka qaar markaa cuntana caadi aad tahay, kaas gaas lama yidhaha. asagana waxaa la yidhahdaa bacteria imbalance. calooshan waxaa leedahay bacteria, good bacteria oo ah mid fiican, iyo bad bacteria oo ah bacteriada xun. labadaba jirku u baahan yahay.
labadaas markii caloosha kala bataan oo mid xun ee badato caloosha waxa ku dhalanaya bahallo waxa ku dhalanaya wax loo yaqaano maxaa la yiraahdaa parasites gooryaano kala duwan aniyo waxa ku dhalanaya jeerdalaan waxa soo dhan caloosha ku dhalanaya waxaas marka caloosha ku dhashaa marka caloosha marwalba waa dibirsanta inta markaad cuni waa diganta haddana marka cunto waa dibirsanta maanta dhuusada aad u ureysaa dhuusada normalka way kasii ur badan tahay oo waa dareemaysaa inay dhuusada ur mararka qaar xataa qofku afku ka soo uraa afku ka soo uraa markaasoo kale yani gudihii ka imaanaa urki afka urka dareemaya oo afkiisa neeftiisa shiira dareemaysaa haddaba intaas waa isla fahanay in waxaanoo dhan intaana bilaabanin ay bacterias inta badan ay ka bilaabato deeqo marka sidee ku yimaadaa waxa loo yaqaano H pylori horta H pylori wuxuu ku imaadaa annaka waxa ugu badan ee H pylori lagu rido afkeena waa ilkaheena waa H pylori waxa ugu badan 80% uu ka yimaado ilkaheena iyo nidaamka u dhisan yihiin waa hadaa taa qof ilka badan oo ilkiisa is saarsaaran yihiin oo cadiga meel walba la kala gaarin oo goosihiisa cariiri ay yihiin goosaha ay dhiigayaan ama ilkaha ay dhiigayaan markuu cadeysto dhiigaas xataa mararka qaar markaa jifto ilkuhu way dhiigayaan goosaha waliba kuwa dambe caloosha ku shubayaan oo waa la qaaday candhuufti kadib bacteria meeshaas ka dhalanayso oo H pylori inta badan waxay ka timaadaa afkeena waa xaymin meesha ugu bacteria badan jirkeena afkeena waa bacteria ugu badan afkeena waa because cuntada afka laga dheeshiida afka ka bilaabata dheeshiidka ee caloosha cuntada kalarkeeda lagu kala bedelaa saxari dhiiga loo kala qaadaa dhiicana loo kala sameeyaa caloosha hawshaas qabata cuntada waxa lagu dheeshiida afka waa dheeshiidku wuxuu ka kooban yahay waa afka waa caloosha iyo beerka saddexdaas qayb ayaa loo yaqaanaa digestive system waa inaa barataa marka dheefshiidkaba afkii ka bilowda bacteriada afkii ka bilaabataa waxyaabaha kale dadka ilkaha xirto dadka goosaha bololaan ee aan iska bixinin ee mar walba buuxiya dadka mar walba gooska xanuunaya kaniiniga inta saara ku seexda ee Soomaalida dadkaas ay kan waxa ku dhacay H pylori gaaseen u maleeyo kule gaasa qaba gaas ma walaalo gaasku inuu magac yeesho laakiin nasiib darro anu dhaqaatiirta kama soo horjeedo لكن نظامك حلو داوية كسور جدا نصيب ضر الدكاتره مرك لو تكوما شيغايان عذركا قبتو كلين غاسا قبتا كنيني كو قران ما عنا مركا دادن كليه وحي كلي با اسكا داف انت عن كرتو مي ولا وربريس معن كرتد او باستا معن كرتد وممنوع او معن كرتد عانه معب كرتد وممنوع او شه معب كرتد وممنوع او سكر متاب كرتد وممنوع او يعني cuntoyin kala shiil mataaba kartid wax bur ka sameeysan oo dhan mataaba kartid soy wax ka sameeysan mataaba kartid wax dhan mamnuuc ka yiin waxa u baanta wax loo yaqaano fermented diet hadaba waa ma fermented diet waxa u baanta wax loo yaqaano kafiir ana ciirta ah oo ana lo ahayn أنا عير أو أريا ويفيعين أما أنا عير أو جيل ويفيعين أنا عير أو لا أو لكن دي بدها لقى كأنه أو الصوت كيما كساره وعون كرتا وحيابها كلا أبانتا وحواي أنتوينك جلوتين كلا إنا كفوجات جلوتين أنتوينك وحكو جروا كربوهيدرات إنا كفوجات وحيابها أنا لاكتوز كلا نوع إنا كفوجات وتقول أنا أريا إسكت أنا لقط إسكت أو أنا أريا وكرون هذه الاستعمال هاي وحكلا أبانتا هي أنت عجارا قجارك عن سلطة بربرونيجا محاجر بالي هذا السلري oo loogu tala galaba caloosha inay dhaqdo oo H pylori ee dejiso oo caloosha stress ka qaado oo nafis caloosha waxa loo yaqaanaa celery waa geedo dheer oo begal ku eeg waay waxa la yiraahdaa celery juice alla waa la shiitaa kiwiga aad u fiican yahay oo bacteria caloosha isku dheelitiraayo fiber uu leeyahay waliba caloosha uu socodsiiyaa babayga aad u fiican waliba waxaan kala dardaarmaa subax kasta markaa soo kacdo calooshaada maran miraha babayga isticmaal maxaa miraha babayga kullu markaa qaado ku cunto waxay dilayaan jeerdalaambigi waxay dilayaan parasite-ki gooryaanadii iniyadu wixii jidkii ku jira in caloosha si fiican musqusho u galaysaa laga yaabo maalmaha koodina ku xanuunsatid laakiin 100% oo ku caafimaadaysaa haddaba waxaan u gudbaynaa leaky gut waa cudur aysan aqoon Soomaalida markuu H pylori-gan ku hayo 5 sano 6 sano 10 sano wuxuu isku bedelaa wax la yiraahdo leaky gut ma leaky gut calooshi wasaqda keedil head ayaa duleeshamayso dhiicaana yar stains wax la yiraahdo caloosh ku jiro dhibicyo yar oo xariijimada duleelinaysa calooshi wasaqdii waxay ku sii deynaysaa dhiig qofkii maxaa ku dhacay marka qofkii gaas oo muddo qabay lafa xanuun ugu darsamay wadna garaaca ugu darsamay dhabarka xanuunayo lafaha xanuunayo madaxa migraine maanta dhan qofkii migraine ka sheegana madaxu qabsana maxaa kale wajiga gubanaya qandho qofka qandha qabanayso galbihi markii la gaaro cagaha gubanayo jilbaha gubanayo dhuuxa xanuunayo qofkii gaas bisma walaalo leaky gadaal laha jirkaaga inflammation oo noqdo jirkaaga caabuqa meel walba ka gala because calooshi ayaa jirkaaga wixii ku sii deynay dhiicaan aan loogu talagalin dhiiggan la raacsi dhiiggan wuxuu isku dayayaa dhiicaankan inuu burburiyo mana burburi karo dhiigga insulin resistant yaa noqonay dadka qaar xataa sokoraha ku dhacdo gaaska kadib thyroid ku dhaco gaaska kadib
xanuuno badana qofka u imaanaya PCOS ku dhaco xanuuno badana imaanaya laakiin sababtii caloosha ka soo bilaabatay lama ogo haddaba deeqow cuntada waa noo sheegtay maxaa lagula dagaalami karaa bakteeriyadan active-ka caloosha ku jirto horta sideeda markii lala dagaalamo calooshan la hagaajinayo 3 meel ayaa loo baahan yahay in la hagaajiyo kow waa inaan hagaajinaa derbiga caloosha derbigan baaba'ay ee bakteeriyada ee baabi'isa ee nabarka ah ee caloosha cuntada ku soo dhaceysay horta kow waa inaan hagaajino caloosha dib inaan shukumaanka u soo dhalino waa kow labo si uu maqaarkan u soo dhasho duf u noqoto waa inaan wax gooni u isticmaalno saddex nabarka caloosha ku yaalay iyo godka duleelay iyo nabri caloosha ku yaalay ama mindhicirka ku yaalay ama dhuunta korkeeda ku yaalay inaan la dagaalanaa rabnayo nabaradin inay baaba'aan waayo oo oxygen fiican helaan oo protein helaan oo collagen helaan oo fiicnaadaan waxaa kale u baahanaa calooshan bacteria leedahay calooshan waxa ku jira wax loo yaqaan microbiome waxa ku jira million bacteria kala duwan ku jirto mid fiican iyo mid xun oo loogu talagalay dheefshiid kiimikaadka inuu ku shaqeeyo oo cuntada lagu shiido kalarkii laga bedelo saxaro loo bedelo qayb dheecaan loo bedelo nafaqadii la raacsiiyo wixii wasaq laga reebo kiimikadaas saas ka shaqeysaa kiimikadaas waa inaan isku dheelitirno marka kiimikadaas waxa u baahanaa in ay kala badanin midda xunna inay badanin midda fiicanna inay saa'id u badanin oo labadooda ay isla socdaan si caloosha si sax u shaqeyso waxaan rajaynayaa muuqaalkan soo daawanay inaad wax uun ka faa'iiday haddii aad wax ka faa'iiday subscribe noo saar gambaleelkan furso si aad u heshid muuqaaladeena dambe ha mogaanan dhegeysta inaad calooshaada ilaaliso